السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته داوديال halkani waa tubta wararka waxaad ku soo dhawaataan barnaamijyadeedkeena waxaan diiradda ku saari doonaa xiisada ka dhex taagan wasiirka amniga xukuumadda federaalka Soomaaliya iyo taliyaha ku-meelgaarka hay'adda nabadgelyada sirdoonka qaranka Soomaaliyeed ee NISA qodobada aad ku daawan doontaan waxaa ka mid noqonaya wasiirka amniga xukuumadda Soomaaliya oo qorsheynaya xilka qaadista taliyaha ku-meelgaarka hay'adda nabadgelyada sirdoonka qaranka Soomaaliyeed Yaasiin Cabdullaahi Maxamuud Yaasiin Faray barnaamijyadeedkeena ayaad kugu soo gudbin doonaa daawadayaal sidoo kale waxaad ku daawan doontaan saaxiibayaal wadaadka Mukhtaar Rabi Cali oo Mansuur oo dabayaaqada toddobaadkan laga sii deyn doona xabsi guri Muqdisho ugu xiran yahay rajiimka sii weeqaya dalka Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo iyo tiimkiisa barnaamijyadeedkeena ayaan kugu soo gudbin doonaa saaxiibayaal sidoo kale waxaad ku daawan doontaan madaxweynihii hore ee dalka Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo oo diidan xilka qaadista taliyaha ku-meelgaarka NISA xilli ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya oo saxiixay xilka qaadista taliyaha ku-meelgaarka hay'adda nabadgelyada sirdoonka qaranka Soomaaliyeed NISA xilli shirka golaha wasiirada toddobaadlaha ay maalinta Khamiista xilka lagu qaadi doono Yaasiin Cabdullaahi Maxamuud Yaasiin Faray xogii ugu dambeeyay ayaa idin soo gudbin doona daawadayaal halkani waa tubta wararka أنا حسوسي أدي تامر في كوري سي كسو غاري وحن كا عسلنا سبسكرايب لبرتنا sidoo kale gameel ka furo si wararka loo soo dhigay ku soo garan hadii aad kamid tahay saaxiibadana qaaska soo waxaan ka codsanayna muuqaalkan share gare like sar si asxaab wanaagsan oo adiga kala aanu helno waad ku maasantaa daawashada muuqaalkani aan ku bilaawno wasiirka amniga xukuumadda federaalka Soomaaliya Cabdullaahi Maxamed Nuur ayaa qorsheynaya xilka qaadista Yaasiin Cabdullaahi Maxamuud Yaasiin Faray taliyaha ku-meelgaarka hay'adda nabadgelyada sirdoonka qaranka Soomaaliyeed NISA xilka qaadista taliyaha ku-meelgaarka ayaa ku soo aadaysa kadib markii warbixino kala gedisan oo wasiirka amniga oo ka codsaday soona turxaan bixiyaba xaaladda wadaadka Mukhtaar Rabi Cali oo Mansuur amniga wareejinta garoonka diyaaradaha Nacde ayuu gabi ahaan bardhabihii loogu talagalay dhaba ahayn ayuu u jeexay taliyaha ku-meelgaarka hay'adda nabadgelyada sirdoonka qaranka Soomaaliyeed Yaasiin Cabdullaahi Maxamuud Yaasiin Faray balse wasiirka amniga ayaa soo qoray warqad ku qoran tahay xilka qaadista agaasimaha hay'adda nabadgelyada sirdoonka qaranka Soomaaliyeed NISA xilli warqadaas oo saxiixay ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble waxaana maalinta Khamiista ee shirka toddobaadlaha golaha wasiirada xukuumadda federaalka Soomaaliya lagu wadaa in la horgeeyo si guud ahaan daaqada loogu tuuro tabashooyinka kala gedisan ee laga soo qabay Yaasiin Cabdullaahi Maxamuud Yaasiin Faray ee ku aadan xilkiisa hay'adda nabadgelyada sirdoonka qaranka Soomaaliyeed NISA waxaa gabi ahaan bajagadiisa oo ku weyn doona xilka NISA oo ka haya Yaasiin Cabdullaahi Maxamuud Yaasiin Faray taa ayaan ku sii muujinaysin culayska uu ku sii badinayso xaaladda Yaasiin Faray si kasto ha ahaatee Yaasiin Cabdullaahi Maxamuud Yaasiin Faray ayaa lagu wadaa in gabi ahaan daaqada laga saaray xilli jeegadan loo dhiibi doono taliyihii hore hay'adda nabadgelyada sirdoonka qaranka Soomaaliyeed Cabdiraxmaan Tuuryare oo kursi ka mid ah kuraasta beesha isla gaar ahaan kursiga tirsigiisu yahay hoob 67 oo laga boobay balse guddiga xalinta khilaafaadka doorashooyinka guddiga ku dhawaaqay ra'iisul wasaare Roble Weyaan ayaa dhawaan ku celin doona inuusan kursigaas si sax ah ku soo bixin iyadoo doorashada kursigaas marka lagu naqdo doono dhinaca kale madaxweynihii hore ee dalka Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo ayaa diiday gabi ahaanba xilka qaadistaas iyadoo xiisadii Farmaajo Roble ay cirka isku sii shareertay xilli xaaladda magaalada Muqdisho ee maanta aad u kacsan tahay aadna loo hadal hayo qorshaha Farmaajo ee ka dhanka xilka qaadista NISA xilli ciidamo fara badan ay ku soo aruurayaan gaar ahaan kuwa sida gaarka u tababaran ee koofi caasta ee ka amar qaadata madaxweynihii hore ee dalka kuwaasi oo xarunta taliska NISA ee habar qadiijo ay waqti xaadirkan buux dhaafinayaan sidoo kale ciidamada huwanta ayaa iyaguna aad u sii buux dhaafinaya halkaasi si kasta ahaatee jawiga Muqdisho ayaa ka duwan sidii hore iyadoo aad loo hadal hayo xaaladdan dhaqaaqa ciidan ee ka dhex taagan Farmaajo Roble iyo xilka qaadista taliyaha ku-meelgaarka hay'adda nabadgelyada sirdoonka qaranka Soomaaliyeed NISA weli waxaad daawanaysaan daawadayaal barnaamijyadeedkeena halkani waa tubta wararka fadlan haddii ay tahay markii ugu horeysay ee ku soo gaaray waxaan kaa codsanaynaa subscribe channelkeena YouTube-ka ee tubta wararka sidoo kale gameelka furo si wararka loo soo dhigay ay ku soo gaaraan haddii aad ka mid tahay saaxiibadana khaaska waxaan naga xasuusinaa muuqaalkan share gare like sar si asxaab wanaagsan adigoo kala helno waad ku maasantahay daawada waxaa lagu wadaa in la sii daayo maalinimada Jimcada dabayaaqada toddobaadkan xilka qaadista kadib
xilka qaadista Yaasiin Cabdullaahi Maxamuud Yaasiin Farey taliyaha ku-meelgaarka hay-adda nabad-sugidda sirdoonka qaranka Soomaaliyeed oo xilkiisa lagu xayuubin doono shirka golaha wasiirada ee maalinta Khamiista. Isla maalinta ku xigta ee Jimcada ayaa la filayaa in laga sii daayo guri oo si baadil ah ugu xirnaa 3 sano ee tagtay wadaadka Mukhtaar Rowe Cali Aw Mansuur, isagoo dhibano u ahaa rajiimka sii wiiqaya ee gebi ahaanba dalka laga sii yareynayo oo majraha u haya Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo, madaxweynihii hore ee dalka xilli cabashooyin iyo taakala ka dhan ah iyo sidii loo xaalifin lahaa rajiimkaasba gebi ahaanba iska kaashanayaan mucaaradka ra'iisul wasaare Roble iyo saaxiibada kale ee daneeya Soomaaliya. Si kasta ha ahaatee, rajiimka Farmaajo ayaa gebi ahaan daaqada laga sii tuuraya, taa ayaana cadaadis ku sii badin karto. Waxaa la filayaa in isla maalinta Jimcada wadaadka Mukhtaar Rowe Cali Aw Mansuur eheladiisu in muddo ay kala fogaayeen oo is arkaan kadib 3 sano oo si baadil ah ugu xirnaa rajiimka madaxweynihii hore ee dalka Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo. dhinaca kale, wasiirka amniga Soomaaliya Cabdullaahi Maxamed Nuur ayaa dhowaan ka dalbaday hay'adda NISA inay garoonka Muqdisho kala baxdo ciidanka ka jooga. Cabdullaahi Maxamed Nuur ayaa markii dambe sheegay in amarkaas uusan khusaynin ciidanka hay'adda nabad-sugidda ka tirsan ee ilaaliya baraha kontarool ee laga galo garoonka, balse uu taabanayo keliya dhar cadka NISA ayaa xafiis ku leh garoonka gudihiisa, kaasoo ujeedadiisu markii ugu horeysay ay ahayd in loo adeegsado howlaha amniga ee halkaasi ee ka wada hay'adda NISA. Hase yeeshee, eedayn ay jeediyeenba dadka qaar ayaa sheegay in saameynta NISA ee garoonka ay noqotay mid talowsan howlaha amniga, taasi oo la sheegay inay sabab noqotay go'aankii wasiirka amniga Cabdullaahi Maxamed Nuur oo ku amray in taliyaha ku-meelgaarka ee NISA Yaasiin Cabdullaahi Maxamuud Yaasiin Farey inuu ciidamada NISA gebi ahaanba uu ka saaro garoonka diyaaradaha ee Aadan Cabdi. Si kasta ha ahaatee, xiisadan u dhexeysa taliska NISA iyo wasiirka amniga ayaa maalmihii ugu dambeeyay cirka isku sii shareereysay. Xiisadan NISA iyo wasiirka amniga xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa maalmihii ugu dambeeyay cirka isku sii shareereysay, waxayna xaaladdu ka sii dari kartaa. garoonka waa meesha ugu xasaasisan ee dalku uu leeyahay, waxa uuna xarun u yahay safaaradihii ajaanibta oo dhan, waxa uuna xarun u yihiin saldhigga Amisom, waa meesha dalka laga soo galo oo diyaaradaha ugu waaweyn ee caalamka yimaadaan, waa meel doorashooyinka lagu qabanayo oo ilaa madaxweynayaasha lagu doorto, waa meel dadka siyaasadda kala aaminsan ay ka dhoofaan kana soo degaan oo la rabo in lagu caburiyo ama lagu fududeystaba. waa meel haddii aad yeelato awood aad xad lahayn aad soo degsan karto waxa aad rabto hadday noqon lahayd waxyaabaha sharci darrada ah ama lacagaha doorashooyinkii wax walba ayuu yidhi Xuseen Cali Maxamuud. Si kasta ha ahaatee, falanqeeyaasha daneeya arrimaha siyaasadda Soomaaliya ayaa ka digaya xiisadan wasiirka amniga iyo hay'adda NISA soo kala dhex gashay ee dhan walba ku aadan, taasoo caqabado waaweyn ay ka muujiyeenba. guud ahaan waanagii intaa daawadayaal barnaamij wareedkeena aad ka daawanayseen tubta wararka. fadlan haddii ay tahay markii kugu horeysay ee ku soo gaaray channelkeena YouTube ee tubta wararka, waxaan kaa codsanaynaa subscribe tiraahid channelkeena, sidoo kale gabeelka furo si wararka loo soo dhigay ay kuu soo gaaraan. haddii aad ka mid tahay saaxiibadeena qaaska, waxaan ku xasuusinaynaa muuqaalkan share garee, like saar si asxaab wanaagsan adigoo kale aan helno. waad ku mahadsantahay daawashada muuqaalkan. waxay noo madalaa muuqaalkan kiis xiga haddii uu eebaweyne kala noqdo. waad mahadsantihiin.